waad salaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena 1by1 oo nagu soo qaadano wararka iyo warbixinihii ugu dambeeyey. Waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyey ee kubadda cagta sidoo kale tartanka loogu ciyaartoyga Gvardiol. Ugu horreyntii haddaynu ku bilowno waxaa tartan adag loogu jiraa ciyaartoyga khadka daafaca uga ciyaara kooxda RB Leipzig iyo sidoo kale xulka qaranka Croatia ee Gvardiol. Haddaba ciyaartoygan ayaa waxa uu noqday hadafka koobaad ee kooxaha Real Madrid iyo Manchester City. Gvardiol oo ciyaara kooxda RB Leipzig ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda aadka loo raadinaya qaaradda Yurub kadib markuu ciyaartoygan koobaad duunaad u fiican la soo bandhigay xulka qaranka Croatia oo uu la gaaray kaalinta saddexaad ee koobka adduunka, sidoo kalena uu la soo bandhigay xilli ciyaareed u fiican kooxdiisa RB Leipzig. ciyaartoygan ayaa hadda waxa uu kula jiray heshiis kooxdiisa RB Leipzig kaasoo dhammaanaya 30 bisha Juun ee sanadda 2027. haddaba ciyaartoygan jira 20 sano ee Gvardiol ayaa hadda waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ay aadka u raadinayaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub, gaar ahaan kooxaha Real Madrid, Manchester City iyo sidoo kale kooxda Chelsea. sidoo kale kooxda RB Leipzig ayaa ahayd kooxdii ciyaartoygan uu ciyaari jiray kahor intaanu ku soo biirin kooxda RB Leipzig. ciyaartoygan waxaa jiray koox isha ku hayay markii uu ciyaari jiray kooxda RB Leipzig oo waxaa ka mid ahayd kooxda Real Madrid oo ciyaartoygan isha ku haysay markii uu ciyaartoygan u ciyaari jiray kooxda Dinamo Zagreb kahor intaanu ku soo biirin kooxda RB Leipzig. haddaba ciyaartoygan ayaa waxaa tartan adag u gali doona kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. uma fududaan doonto ciyaartoygan inay la soo wareegaan ama si fudud ula soo wareegaan, maadaama ciyaartoygan uu heshiiska uu kula jiro kooxda RB Leipzig uu dhammaanayo sanadda 2027. waxaa kale tababarihii hore ee kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa hadda la sheegay inuu ka mid yahay tababarayaasha ay doonayaan xiriirka kubadda cagta waddanka Brazil inuu qabto xilka xulka qaranka Brazil. haddaba kadib markii uu ka tegay xilka tababarnimo ee xulka qaranka Brazil, tababarihii hore ee xulka qaranka Brazil ee Tete waxay isku dayayaan xiriirka kubadda cagta waddanka Brazil inay la soo wareegaan ama ay la soo seexdaan tababaro cusub kaas oo noqon karaya tababaraha cusub ee xulka qaranka Brazil. haddaba Zinedine Zidane ayaa waxa uu ka mid noqday ama uu ku biiray hadda tababarayaasha ay hadal hayaan xiriirka kubadda cagta waddanka Brazil. sida uu sheegay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa waddanka Faransiiska, xiriirka kubadda cagta waddanka Brazil oo diidaya ama raadinaya tababaro cusub oo xulka wata ayaa waxa ay sheegeen inuu ku biiray liiska tababaraha hore ee kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane. haddaba sidoo kale waxaa jiray tababarayaal kale oo ay isweydiiyeen xiriirka kubadda cagta waddanka Brazil, waxaana ka mid ahaa tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola, sidoo kale tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti. waxaa iyaguna jira tababarayaal kale oo la sheegay sida tababare Zinedine Zidane iyo sidoo kale tababare Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Roberto Martinez, Rafa Benitez iyo sidoo kale tababarayaal kale oo ka mid yahay tababaraha kooxda Roma ee Jose Mourinho. haddaba xiriirka kubadda cagta waddanka Brazil ayaan ilaa hadda u dhaqaaqin tababare cusub, balse sida la sheegay waxay magacaabi doonaan tababare cusub oo noqon karaya tababare kasoo jeeda bannaanka waddanka Brazil bisha January ee sanadka cusub ee 2023. haddaba tababarayaasha ugu cadcad ee ay hadal hayaan xiriirka kubadda cagta waddanka Brazil ayaa waxay kala yihiin Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino iyo tababarihii hore xulka qaranka Belgium ee Roberto Martinez. dhinaca kale kooxda Atletico Madrid ayaa waxay sheegtay qorshaha labaad ee ciyaartoyga Joao Felix uu kaga tegi karayo kooxda Atletico Madrid. haddaba tegitaanka ama bixitaanka ciyaartoyga Joao Felix uu ka baxaya kooxda Atletico Madrid ayaa maalinba maalinka ka dambeysa sii xoogsanaya. haddaba ciyaartoygan ayaa waxa uu doonaya inuu ka tago kooxda Atletico Madrid haddii ay noqoto suuqa kala iibsiga ee bisha January ama xagaaga dambe ee sanadda 2023. bixitaanka ciyaartoyga Joao Felix ama inay kooxi la wareegto ma noqon doono mid fudud oo inay iibsato kooxi. waxa uu qaadanaya ama waxa uu ku kalifaya 140 milyan oo euro, ugu yaraana waxa uu noqon karayaa qiimaha 120 milyan oo euro. haddaba qiimahaasi waa qiimaha ay dalbatay kooxda Atletico Madrid oo ay sheegtay kooxdu inay doonayso inay ciyaartoygan ku fasaxdo maadaama ciyaartoyga Joao Felix uu noqday ama uu ahaa ciyaartoygii abid ugu qaalisana ee ay la soo wareegto kooxda Atletico Madrid, kaasoo ay ka soo bixisay 120 milyan oo euro. haddaba waxaa jiray kooxa doonaya ciyaartoygan sida kooxda Bayern, balse ilaa hadda wax wada hadal ah lamay furin kooxda Bayern kooxda Atletico Madrid. haddaba sida la sheegay qorshaha labaad ayaa ah in sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Ingiriisku ay doonayso kooxda Arsenal inay ciyaartoyga la soo wareegto, waxayna ciyaartoyga kooxda Arsenal kula soo wareegaysaa amaah oo xilli ciyaareedka inta ka hadhay ayuu amaah kula ciyaarayaa iyagoo aan hadhow iibsan karin ama aan awood u yeelanaynin inuu ciyaartoyga Joao Felix ay si rasmi ah ama si kaba dambeys ah ula wareegaan. waxaana ciyaartoygan ku kalifayaa qiimaha ama intuu ciyaartoygan amaahda ugu ciyaaray kooxda Arsenal 8 milyan oo euro. sidoo kale kooxda Arsenal waxaa laga rabaa
in ciyaartoyga Joao Felix muddada uu amaahda kula joogo ay bixiyaan dhammaan mushaharkiisa. Sidoo kale waxaa la sheegay in kooxda Manchester United iyaduna ka mid tahay kooxaha ugu awoodda weyn leh ee doonaya ciyaartoyga Joao Felix. Sidoo kale Arsenal ayaa iyaguna ku jira, balse waxaa la sheegay in Arsenal hadda awoodda saarayso sida ay ula soo wareegi lahayd weeraryahanka reer Ukraine ee u ciyaara kooxda Shakhtar Donetsk ee Modric si uu u noqdo ciyaartoygii bedeli lahaa Gabriel Jesus, kaasoo dhaawac kaga maqnaan doona kooxda Arsenal bilaha soo socda. Haddaba ciyaartoygan Joao Felix ayaa waxaa si aad ah looga doonayaa horyaalka Ingiriiska ee Premier League, waxaanay noqon doonaan labada kooxood ee tartanka adag u geli doona kooxaha Manchester United iyo sidoo kale kooxda Arsenal. ciyaartoyga Joao Felix kadib markii uu kusoo biiray kooxda Atletico Madrid lamuusan qaadan ama musoo bandhigin ciyaareed aad u fiican, arrinkaas oo keenay ciyaartoyga inuu dalbado ka tegitaanka kooxda Atletico Madrid. Haddaba kooxda Atletico Madrid ayaa waxay ogolaan doontaa inay si amaah ah ku fasaxdo ciyaartoygan, balse kooxdii la wareegaysa ciyaartoygan waxaa laga rabaa inay bixiso qiimaha mushaharkiisa oo dhan inta uu la joogayo ama muddada uu amaahda kula joogo kooxda. Sidoo kalena aanay kooxda hadhow iibsan, qiimaha amaahduna ay noqoto 8 milyan oo euro. kooxda Arsenal ayaa doonaysa inay ku xoojiso weerarkeeda maadaama uu dhaawac soo gaaray ciyaartoygeeda Gabriel Jesus ee weerarka iga ciyaara, halka ay kooxda Manchester United isku dayi doonto ciyaartoygan inay la soo wareegto. sidoo kalena Manchester United ay xagaaga hore isku dayday ciyaartoyga Joao Felix inay la soo wareegto, balse hadda Manchester United waxay isku dayi doontaa inay ku awdo ama uu buuxiyo ciyaartoygan booska uu ka baxay weeraryahanka hore ee kooxda ee Cristiano Ronaldo. sidoo kale ciyaartoyga dambeedka midig uga ciyaara kooxda Manchester United ee Aaron Wan-Bissaka oo la sheegay waayihii ugu dambeeyay ciyaartoygan inuu ka tagi doono kooxda Manchester United una ku laaban doono kooxdiisii hore ee Newcastle Crystal Palace. haddaba ciyaartoygan waxaa ka hadlay tababaraha kooxda Crystal Palace ee Patrick Vieira ayaa waxa uu sheegay in kooxda Crystal Palace isku dayi doonto inay suuqa jeerin weli ay aad u gasho ay la soo wareegto ciyaartoy badan oo tayo leh. haddaba ciyaartoygan Aaron Wan-Bissaka ee uga ciyaara dambeedka midig kooxda Manchester United ayaa waxa uu xagaagii sanadii 2019 qiimaha 50 milyan oo euro uu kaga tegay kooxda Crystal Palace isagoo ku biiray ama ay ku iibsatay kooxda Manchester United. haddaba iyadoo ay taasi jirto ciyaartoygan ayaa waxa uu suuragelin inuu noqdo ciyaartoyga koowaad ee ka ciyaara booska dambeedka midig ee kooxda Manchester United, iyadoo ay jirto warar sheegaya ciyaartoyga Wan-Bissaka inuu kusoo laabto ama uu kusoo laabanayo kooxdiisa Crystal Palace inkastoo aanay jirin wax dhaqaaq ah oo ay samaysay kooxda Crystal Palace ay u soo ceshato ciyaartoygeedii hore ee Aaron Wan-Bissaka. Patrick Vieira ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoyga Aaron Wan-Bissaka ay weli jecel yihiin taageerayaasha kooxda, balse ciyaartoygan uu ciyaaro kooxda Manchester United lagana rabo Patrick Vieira iyo kooxda Crystal Palace inay ixtiraamaan arrinkaas. Patrick Vieira ayaa sheegay ciyaartoygan inuu yahay ciyaartoy tayo leh, sidoo kale ciyaartoy aad u fiican heshiisna kula jira kooxda Manchester United. haddaba kooxda Crystal Palace ayaa la sheegay in isku dayi doonto la soo wareegidda ciyaartoyga Aaron Wan-Bissaka ee dambeedka midig uga ciyaara kooxda Manchester United kadib markii uu ciyaartoygan xagaagii sanadii 2019 oo qiimo lagu qiyaasay 50 milyan oo euro uu ugu biiray kooxda Manchester United. haddaba kadib markii uu la soo wareegay tababarihii hore ee Jose Mourinho ee kooxda Manchester United, ciyaartoyga haatan dambeedka midig uga ciyaara kooxda Manchester United ee Diego Dalot sidoo kalena uu ciyaartoygani noqday ciyaartoyga koowaad ama ciyaartoyga sida joogtada ah uga ciyaara booska dambeedka midig ama daafaca midig ee kooxda Manchester United ayaa waxaa la sheegaya ama waxaa soo dhowaatay xilligii uu ka tagi lahaa kooxda Manchester United ciyaartoyga Aaron Wan-Bissaka, waxayna tahay kooxdiisa hore ee Crystal Palace kooxda ugu dhow ama kooxda ugu fudud ee ciyaartoygan uu ku biiri karayo. halka ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta Madrid inaanay kooxda Real Madrid waqti iskaga lumin doonin la soo wareegidda ciyaartoyga Kylian Mbappe. ciyaartoyga Kylian Mbappe iyo kooxda Real Madrid ayaa waxay go'aan kala qaateen bishii la soo dhaafay ee May. ciyaartoyga Kylian Mbappe waxa uu go'aansaday bishii May inuu heshiis kordhin u sameeyo kooxda PSG, ciyaartoygaas oo ka doortay kooxda PSG kooxda Real Madrid. haddaba ciyaartoygan ayaa waxa uu doortay kooxda PSG, sidoo kale markii uu heshiis kordhinta u sameeyay kooxda PSG waxaa ka soo wareegtay muddo 6 bilood ah. haddaba intaa kadib waxaa jiray warar sheegayay in ciyaartoyga Kylian Mbappe ay mar kale la soo wareegi doonto kooxda Real Madrid kadib markii ay kooxda Real Madrid isku dayday inay la soo wareegto ciyaartoygan 2 ilaa 3 jeer oo kale, balse ilaa hadda ma jirto wax go'aan ah oo ay qaateen mas'uuliyiinta kooxda Real Madrid kaasoo ku saabsan wararka sheegaya in kooxda Real Madrid ay la soo wareegi doonto ciyaartoyga Kylian Mbappe. Real Madrid ayaa hadda waxay bilowday inay la soo wareegto ama ay dhisto ciyaartoy badan oo mustaqbalka hogaamin doona kooxda Real Madrid. haddaba Real Madrid kadib markii ay ku bixisay go'aano badan ama isku dayday marar badan inay la soo wareegto ciyaartoyga Kylian Mbappe ayaa ugu dambeyntii kooxdu waxay ka niyad jabtay ciyaartoyga Kylian Mbappe la soo wareegidiisa. sidoo kale kooxdu waxay awoodda saari doontaa ciyaartoyda hadda u ciyaara sida Vinicius iyo Rodrigo.
haddaba ma diidi karayaan mas-uuliyiinta kooxda Real Madrid ciyaartoyga Kylian Mbappe tayada uu leeyahay iyo sidoo kale caawimaadda uu caawin karayo ciyaartoyga Kylian Mbappe haddii uu kusoo biiro kooxda Real Madrid haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale haddii ay noqoto dhinaca kubaddaba. haddaba ciyaartoygan ayaa waxa uu sii joogaya kooxda PSG sidoo kale kooxda Real Madrid waqti xaadirkan kuma fikirayso inay la soo wareegto ciyaartoyga Kylian Mbappe maadaama uu 6 bil ka hor heshiis cusub oo ah ilaa sanada 2025 uu saxay kooxdiisa haatan ee PSG. ugu dambeyntii waxaa bari soo laaban doona horyaalka Ingiriiska ee Premier League kadib markuu maqnaa muddo 43 maalmood. haddaba waxaa ka soo wareegtay ugu yaraan muddo bil iyo xoogaa ah markii ugu dambeysay ee kulamo la ciyaaray horyaalka Ingiriiska ee Premier League kadib markii ay ciyaartoyda qaarkood aadeen ama ay ka qayb qaateen koobka adduunka halka ciyaartoyda kale aan looga wicin koobka adduunka iyaguna ay ku maqnaayeen fasax. haddaba waxaa soo laaban doona horyaalka Ingiriiska waxaana la ciyaari doonaa kulamadii loo yaqaanay Boxing Day-ga